دي إلهي وقدره درجة كوبات كومباني جانني ومحي مرك هوري درجة كوبات ولا ليال كومباني جانا وحلو يقنا assistant supervisor marka assistant supervisor ka marka ugu horeysa maxaynu talaabada ugu horeysa uu isdiiwaan gelinaynaa mar alla marka saad isku diiwaan geliso waxa aad haysataa boqolkiiba waxaad haysataa 30 iyo boqolkiiba 5 baad haysataa markaas diiwaan geliso oo soo dhaweyna isla markaana ID number ku gaar ayaad haysataa waa faa'iidada ay leedahay inaad isdiiwaan geliso oo waxa weeyaan waad ka duwan tahay markii aad banaanka joogtay marka adigoo boqolkiiba 5 haysto kumbari wuxuu ku leeyahay waa inaad gudubto oo aad u gudubto boqolkiiba 30 aad u gudubto waliba 5 aan ku soo celinayo cashback waxa weey lacag aad bixisay dib lagu soo celinayo lacag yaani cashback ahaan dib lagu soo celinayo boqolkiiba 5 dib uu kugu soo celinaya 30 discount markaaba ku siinaya oo ma sha Allah tabarakallah taana tariina kala duwan baynu ku arki doonaa laakiin guud ahaan boqolkiiba 35 ayaa darajadan lagu helaya qiimo dhimis ma sha Allah marka wholesale baad helaysaa si aad darajada muhiimka aad u gaadho waana marka team samayn karto ee aad walaalo kale ku soo xiri karto weeyaan waana marka maxay adduunyada dhan ay ku furmayso waana marka dreamkaaga gaari karto waxa jira dad badan oo runtii ma sha Allah darajada markay gaadhaan dhaqaale fara badan oo kumayaala sameeyay baa jira sidoo kale waxa jira ma sha Allah hadda gabadhan walaasheen magaceega aan carabaabi karo oo Safiya la yiraahdo buhoodlay joogtaa ma sha Allah darajadan iyadoo ku jirta ayaa waxa ay ka samaysay ganacsi maanta degan oo nolosheeda iyo mustaqbalkeeda bedelay waa markay darajadan gaadhay dhaqaalihii soo galay kadib ayay ka samaysay meherada yaani tira male hadan maanta dhan tiriyas inta qof ee ka faa'iiday waxa weeyaan walaalayaal tira male marka darajadani waa maxay muhiimadda ay leedahay waa darajada ugu horeysa darajadan ugu horeysa assistant supervisor ka la yiraahdo faa'iidooyinka ay leedahay waxa kamid ah product discount fiican baad helaysaa boqolkiiba 30 isla markaana waxaad helaysaa boqolkiiba 5 cashback isla markaana qof kasto aad keentay ilaa boqolkiiba 30 commission ayaad ku yeelanaysaa isla markaana waxay company-gu ku ogolaanaya 170 ilaa 160 wadana u dhaxeeya يعني 160 wadan buu company-gu ka shaqeeyaa laakiin wadanada kale soo hadhayna wuxuu ka shaqeeyaa sidadban marka ilaa 170 wadan ayaad maanta kaga shaqeysan kartaa tusaale ahaan Ethiopia company-gu xarun kuma leh waanu ka shaqeeyaa Djibouti xarun kuma leh waanu ka shaqeeyaa Masar xarun kuma leh waanu ka shaqeeyaa Yemen xarun kuma leh laakiin waanu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa dad inaga mid ah ay oo dadka wadanada u dhashay ayaa alaabtiina geeyay fursadiina kaga faa'iideysta laakiin company wadano uu cashuur bixiyo yahay oo xarumo rasmi ku leeyahay baa jira oo 160 wadana ma sha Allah sidoo kale walaalayaal waxa ku furmaya incentive-yadii oo dhan waxa ku furmaya inaad guulo waaweyn gaadho oo aad ilaa manager gaadho oo waxa weeyaan aad hore u socoto ayaa ku furmaysa marka darajadani waa darajo aad iyo aad u muhiim ah waxa sidoo kale ku furmaya ama aad heli doontaa personal development horumar shakhsiya waayo bila aadanku ma aha kaliya inuu jir ahaan koro laakiin wuxuu korayaa shakhsi ahaan inaad korto ayaa muhiim ah waxaad baranaysaa sida alaabta loo iibiyo ama xirfadda alaab iibinta waxaad baranaysaa sida dadka loola hadlo kalsooni fara badan ayaad yeelanaysaa ma sha Allah wax badan ayaa walaalayaal iska ka bedelaya waa darajada koobaad oo kaliya hadda waxaynu taaganahay ee aad la doonayo caawa inaad iska buuxisan insha Allah ta'ala qorshaynu waxa weeyaan 7 cisho gudaheed inaad darajadan koobaad aad ku buuxiso weeyaan يعني main point-ga aynu ka leenahay waxa weey in sida ugu dhaqsiyaha badan la darajada koobaad u buuxiso si aad waxa weeyaan guulaha waaweyn iyo ahdaafta waaweyn ee aad doonayso aad u gaadho oo dariiqu kuugu furmo walaalayaal ma sha Allah haddaba waay maxaad u qabanaysaa 2cc-ga waa maxay sababtan 2cc-ga aan iskaga buuxinayno ama darajada koobaad aan u buuxinayno maxay tahay horta 2cc-gaasi Hargeysa markaynu alaab ka dalbanayno wuxuu dhigmaa alaab ilaa $500 qiyaastii inaad iibisay ayuu dhigmaa haddii aad alaabta package qaadatana oo package-kaad hal mar qaadato oo kartoonkaad hal mar qaadato iyadu waa $385 oo dee markaa waxa weeyaan immediately isla mar daqiiqad baad markiiba speed-kaaga yani hal mar baad iska buuxisay haddii aad 500 hal mar wada qaadatana iyadana hal mar baad iska wada buuxisay ma sha Allah haddii kalena talaabooyinkan ayaad raaci kartaa oo aad darajada koobaad ku buuxinaysaa
واتك كلا يري رئيسا قابكي مقرنا ساكوب بحين لهيدنا واكنا ولا ليال إن شاء الله تعالى وانس لدي سينا هذا بفايدوين كايلا هاي 2cc جو حكم ده to give you a clear vision أركتي في عن أياد يلانيسا to know what you are referring واحد قرنيسا قفك أتكينيسا واحد فايدة كوجو شرطة يهالك هذا صعوتايات قرنيسا to gain unshakable faith on products ألابتي أيا وحويا نتصدبه آمينيسا وألابتي فايدة دي بتكون قنعيسا وضد بدن عاونيسا ألابتي أيات فهميسا ومركا 2cc بحس إن شاء الله تعالى to test yourself with forever living واحد أغانيسا مركا درجة كوبات بوحيسو لا بعدينتي يلا باللبينتي باكاب حيسا ومحي كاب حيسا قناعسي واد بلاوضي وادي سصوبا نقاسا وادي سموتشينيسا يعني إن القف وحقاب سنكرة هايين كلا يسموتشينيسا أودا دي بنانك كنت ما شاء الله تبارك الله وايه هذا بقول عليال بالوحي إنه يسلي جدونا هدي لهاي رادو سيدي إنه 2cc مركا كوبوحين كرنا how 2cc سيديبان 2cc ugu horeeya aan ku buuxin karaa things to remember waxyaabaha ay tahay inaad xasuusnow ayaa lagu yiri xasuusnow marka doonaysa 2cc inaad buuxiso xasuusnow qodobadani waa assignment waa imtixaan oo kale not investment ballaaran iyo dhaqaale fara badan oo laga doonayo kaalayo lacagtan soo buuxi ma aha لكن واتجابات نفتها تجابينيسا إن wax qabsan karteen kale inaad wax iibin karteen kale aad tijaabinaysa waa darajadii koobaad dad badan baa oranayaan waxaan lacagtii ma sugaya waan soo diyaar garoobaya assignment-igi baad ku dhacaysaa marka imtixaankii baad ku dhacaysaa waan soo diyaar garoobaya ma ahaba already diyaar baan ahay sidee baan ku buuxiyaa way businesskii diyaar baan u ahay inaan socdaan diyaar u ahay in waqtiga luma doonayo I just need to go waxaan rabaa kaliya inaan dhaqaaqay halkeen maraa ما شاء الله marka investment ma aha ganacsigan anagu waan ka shaqeyno ma aha walaalayaal investment because investmentiga ama maalgashigu lacag fara badan iyo kumayal dollar buu baahan yahay laakiin waa nidaam aad ma garanaysaa wax weeyaan aad awoodaadana isku tijaabinayso insha Allah taala dariiqna leh dhaqaale yar oo koobanna qofku ku bilaabi kara haduu damco inuu darajada hal mar iska buuxiyo hadii kalena waa assignmentiga iyo processka waxa weeyaan si rafuu ku buuxin karo dad badan baan maalin walba arkaa oo ka cabanaya xagga dhaqaalaha laakiin hadii ay assignmentigan ama caawa talaabooyinkan aan siinana ay qaataan marka waxnu baa inay ma garanaysaa darajadii koobad walaalayaal iska buuxin doonaan insha Allah taala marka waxa weeyaan waa business mindset يعني waxa weeyaan waa ganacsi ku saabsan aragtidaada iyo maskaxdaada ku saabsan yani maskaxdaada hadii ay aaminto inaad buuxin karto waad buuxinaysaa hadii aad aamintay inaad buuxin karin labada siisina ma buuxin kartid way kugu adkaanayaan marka waa mindset ka weyn ma aha wax adag walaalayaal wax aad u fudud weeyaan ma sha Allah waa darajada ugu horeysa way diiwaangelintu aan soo garanay inay fudud iyadu tahay wax ma garanaysaa lacag aan laynaga doonayn oo bilaash inay tahay waynu soo aragnay waayahay it is sharing business not selling ma aha iib iyo ganacsi aad leedahay iib badan baan u baahan laakiin waa wax u baahan inaad share garayso oo alaabtii benefitkeegi marka aad ma sha Allah aad dadka u bandhigto oo u sheegto tusaale ahaan gurigaaga waxa kula jooga dad fara badan alaabtii u baahan asxaabtaada waxa laga yaabaa dad fara badan oo maanta u baahan qaybta gaaska inay jiraan dad fara badan oo u baahan qaybta caloosha la iskaga jaray inay jiraan dad fara badan oo u baahan qaybta yani qaybaadka alaabteen oo dhan caafimaadka haday tahay quruxda haday tahay miisaanka personal care-ka dhammaan dad u baahan inay jiraan baa suuragal asxaabtaada yihiin waxa laga yaabaa familigaaga sidoo kale dad fara badan oo alaabtii u baahan inay jiraan waxa laga yaabaa sidoo kale jaarkaaga dad badan oo u baahan oo meel u gaaraan ama meelasha shaka dalbanaya alaabta inay jiraan waxa laga yaabaa qaraabadaada dad fara badan oo alaabtii u baahan inay jiraan qaraabadaada asxaabtaada iyo familigaaga ayaaba kugu filan inaad darajada koobaad markaaba aad buuxiso oo 2cc aad buuxiso sidee bay kugu filan tahay waxaan la soo kala baxbuugaaga iyo qalinkaaga familigaaga imisa qof horta alaabta ma kala taqaanaa alaabta aynu hayno ma kala naqaanaa alaabta aynu qayb waa qaybta caafimaadka xagga caafimaadka markaan isdul taagno caafimaadka hadii aynu ka hadalno qaybaadkan aynu waxa kamid ah walaalayaal qaybta gaaska ama ciladaha caloosha calool istaaga qaybaha taranka infectionka waxa soo alaaba ka caawinaya waxa kale oo kamid ah xagga ragga dhinac walba alaaba ka caawinaya ayaa jira lafa xanuunka haday tahay
hadday tahay dhinaca walba fiitamiinadii carruurta dhinaca walba marka familigaaga ama qoyskaaga fiitamiinka carruurta imisa ayaa maanta dareemaysa inuu baahan yihiin baradhagan fiitamiinka carruurta faa'iidooyin fara badan buu leeyahay hooyo kasta iyo aabba kastana haddii ay garanayaan faa'iidada uu leeyahay baradhagani qof walba uu gadi lahaa ilmihiisa ama carruurtiisa uu siin lahaa adigana alxamdulilah baradhagaasaad haysaa okay imise waalid baad ka iibin kartaa kelidii dad fara badan soo ma qoro marka qoro oo liis garayso gaasga imise qof ayaad familigaaga iyo asxaabta iyo jaarka iyo aad garanaysaa ayuu dhibaato fara badan ku hayo buug iyo qalinkaa ku qor canab baan garanayaa caashaan garanayaa cabdi baan garanayaa gaas waa kii kadeednaa dhakhtar kasta aadaysa yacni isu garamaysid qaybaha taranka xaggii ragga hadday tahay xaggii dumarka hadday tahay imise qofaad garanaysaa qoro hadda imise ayaad garanaysaa who you know yaad garanaysaa alaabta yaa u baahan oo aad garanaysaa qor marka liis garee liis dheer qoro marka hore okay maasha allah oo asxaabtaada iyo familigaaga iyo dadkaasoo dhan ah markaasi tusaalahaan markaad qorato liiskii waxa kuugu xiga in mataqaanaayay aad share garayso maasha allah oo waad share garayso soo ma waa sharing marka istadiska talaabooyinkaad qaadayso maxay yihiin build a list potential buyers dadka ka iibsanaya liis garaysa marka ugu horeysa build this dadka alaabtan ka iibsanaya isleeda way ka iibsan karaan qoro hadda watan hadda inii sheegay walaalayaal friendiska familiga asxaabta jaarka cid walba qoro oo alaabtan u baahan hadday noqoto miisaanka hadday noqoto qaybta caafimaadka hadday dhinac walba ka fiiri qoro marka okay maasha allah waa talaabada koobaad wey talaabada labaad waa maxay use suitable average nooca saxda ah ee aad alaabta ku soo bandhigi karto isticmaal sidee baad alaabta ugu soo bandhigaa ama ula sheer gareen waxa jira noocyo fara badan oo alaabta aad ku soo bandhigi karto mid waa direct average baa la dhahdaa waa alaabtii oo si toos ah qofkii ugu bandhigtay waadigii ka cadan jiray aan koogaa ka waxaan ku helay maasha allah product aad ku xalinaya waa kan ayaad leedahay dad baa odhanaya waxa weeyaan productiga haddaan gacantaba ku hay maxaa sameynaya siyaabo badan oo product aanu kaaga caawin karnaa jirta xarumaanu leenahay xarumahan kaa caawin karnaa idhiga lagu sameeyo idhiga ugu soo adeeg yani haddii mindset weeyaan waxaan haddii aad aamintay inaad qaban karto easy caawa dhammaantiin waan wada qabanaynaa haddii laakiin aynu aamino wixii wax adag aad iskaga dhigto wuu adkaanaya nooca kale waxa weeye indirect approach asxaabtaada tusaalahaan walaashaabaad garanaysaa walaashaabaad odhan kartaa waxa weeyaan asxaabteeda ama dadka ku xidhiidhsan baa jira in dad fara badan ay productiga u baahan yihiin walaashaabaad la sheer garaysay iyana laga yaaba dad inay kugu soo xidho alaabtii u baahan soo garanaysid oo ay kuu keento hooyaa laga yaabaa dad fara badan ay garanaysay dad kuu keento oo gaas ka cabanaya lafa xanuun ka cabanaya waxaasoo dhan ka cabanaya iyadaa kuu keento marka maxaa kuu fudaanaysa macaamiil fara badan inaad hesho ayaa kuu fudaanaysa review average markasta yacni hubi waxyaabaha lagu keeno ama hubi dee noocaad ma garanaysaa u samaynayso contactiga ama xiriirka aad u samaynayso iska hubi nooca kale waxa weeye side average yacni dariiq saddexaad oo aad waxa weeyaan ku gaadhsiin karta alaabta hadday noqoto social media hadday noqoto website-yada hadday noqoto facebookaaga hadday noqoto dhinac kasta ayaad isticmaali kartaa marka waxaynu haysanaa habab badan oo waxa weeyaan aad dadkii u baahnaa alaabta aad ku heli karto oo aad ku liis garayn karto ayaynu walaalayaal haysanaa waana tallaabada labaad ee aad qaadayso si aad 7 maalmood gudaheeda labada siisi ama alaab $500 ka badan aad u iibiso weeyaan 7 days iyo $500 alaab ka badan si aad ku iibin lahayd ayaynu insha Allah tacaala walaalayaal isla qorsheynaynaa tallaabada saddexaad ee laga doonayo waa maxay tallaabada saddexaad waxa weeye contact and build with relation contact la xidhiidh isla markaana dhis xidhiidh dadka alaabta ka iibsanaya sidee baad u dhisaysaa xidhiidhka waxaad u dhisaysaa dadkii waa inay adigiina kugu qancaan alaabtiina ku qancaan oo wixii aaminaan marka aaminitaan dhis kalsooni dhis okay maasha allah alaabtina caawinaysa u sheeg ku xaji daawada ilkaha imisa qofka maanta familiga u baahan aad garanayso dhan yani dad u baahan raadi kadibna kalsoonidii ay ku heli lahaayeen barodhagaasi isku hawl baa la yidhi ninkiilihi waxa weeyaan wuu carcararaa tolna iyo dadka walaalihiina waa u irkiyaan annaguna waan ku caawinaynaa adigana businesskan adiga iskale waxa la doonaya 100% boqolkiiba boqol in adiga ka timaada ayaa la doonaya
قدب كافراد waxa weey walaalayaal provide waxaad siinaysaa macluumaad ku saabsan alaabta si okay way alaabti haddana macluumaad ka bixin oo alaabti aanad garan karin waxaad marka wana macluumaad fiican alaabti aad ka bixiso si ay waxa weeyaan qofkii waxa laga yaabaa isagoo maanta iska kadeedan oo qaybtii taranka u baahan in waxa weeyaan ay haddana ku adag wax ka iibso marka maxaa la doonayaa xiriir fiican la dhisto qofkii oo si fiican wixii uga dhaadhacsiiso oo wadaylka waxa ay tarayso in kalsooni fara badan dhisto qofka raba miisaanka inuu iska dhimo is-ogolaysiisaa laga rabaa saaxiib ka dhigto is-ogolaysiiso oo wan karo adiga seetaa ku gaadhi wana product aqoon fiican u leedahay oo productkiisa si fiican u kala garanayso maasha Allah walaalayaal waxaynu ku guda jirnaa si ugu horeeya iskaga buuxin lahayd talaabada markaad xiriirkii dhisto qofkii kalsoonidii aad habayso ugu dambaysa waxa weeye close the dealku waa xidhan yahay dealkii waa xidhan yahay maasha Allah and the deal share the product and do follow up ka fiirsada waxa weeyaan waxa lagu yiri dealkii wuu xidhan yahay oo waxa weeyaan heshiiskii alaabtii wax walba qofkii waa ka iibisay waad la share garaysay isla markaana waxaad ku sameynaysaa follow up dabagal baad qofkii ku sameynaysaa alaabtii uu shalay ka iibsaday waad ka daba wacaysaa haye ii waran sidii aan kuudhu isticmaal ma u isticmaashay waxba ka qaldan waxaan ka caawiyaa adigoo kar garanaya waa inaad ma garanaysaa u dareemo qof kale u baahan alaabta ma garanaysaa igu soo xidh baad leedahay okay maaha kilidii waxaad u socotaa halka qofeed wax ka iibiso ku dadaal inaad dad fara badan uu kuu keeno qof kale u baahan alaabta ma garanaysaa haa dee igu soo xidh waan hayaaye alaab badan baan hayaa waxyaabahaasaan hayaa kaa kalan hayaa wixii waxa weeyaan halkii qof inaad 10 qof oo kale macaamiil aad ka samaysato waa inaad ku dadaasho maasha Allah marka halka waxaad ka fahmaysaa in labadiisii si aad markaaba iska buuxinayso salahan asxaabtaada waxaad ka iibisay waxoogaabad ka iibisay familigaaga waxbaad ka iibisay dadkii kale waxbaad ka iibisay jaarkii labadiisii si adigoo ka badan iibiyay wada kaysa maasha Allah easy soma walaalayaal ma wax adag ba maya wax adag maaha waayahay haddaba walaalayaal tusaalahan waxyaabaha laga maarmaanka ah ee had iyo jeer dadku ay aad iyo aad kugu baahan yihiin waxa kamid ah deodoranka ama baalkan kilaakisha loo isticmaalo waa product faa'iidooyin fara badan leh waxyaabo badan ayuu waxa weeyaan kilaakisha loo isticmaalaa marka waa cadar oo kale weeyi madmadowga oo kale uu ka qaadaya alcohol male alcoholka ayaa deodoranada aynu aragnay inta badan ku jira mugiisuna aad buu weyn yahay waa personal care qofku diidaya aad buu yar yahay haddii aad u bandhigto okay 10 xabo haddii aad ma garanaysaa oo deodorant aad iibiso imise cc baa kaaga soo kordhaya ama imise point ama imise dhibcood baad ka helaysaa labadii cc 10 xabo deodorantia 10 ka xabayay noqon karaan dadkaad wada shaqaysaan baaba ka iibsan karaba dadkaad meesha aad wada shaqaysaan ama aad wada joogtaan baa mid ka qaadanaya 10 ka xab wax badan maaha sidoo kale alo libis waa libis debnaha qaleelka loo isticmaalo gaar ahaan waliba xilliga qabowga kale debnahaga ma sha Allah saliid weeyaan oo kale aad bay u fiican tahay waa personal care ma sha Allah marka iyadana waxa weeyaan dadka aad garanayso oo dhan haddaad 30 xabo u qaybiso 30 qof aad u qaybiso waa qaybin kartaa libis qof walba u baahan yahay Soomaaliya walaalayaal debnihiisa dad badan baa u baahan most of them qof walba yaan dhihin laakiin majority dad badan baa u baahan marka waa personal care waa waxyaabaha sida shakhsiga maalin walba loogu baahan yahay waxa kamid ah daawada ilkaha qof walba wuxuu u baahan yahay oo aad garanayso adigu aad ku jirto daawada ilkaha u baahan tahay walaalka u baahan hooyo u baahan ehelkiiba u baahan asxaabtiiba u baahan waxyaabaha ay taraysana waxa kamid ah aloe vera ka samaysan tahay iyo bipropolis ilkahana way ku cadaynaysaa aad bay kugu nadiifinaysaa sidoo kale walaalayaal waxay aad kugu fiican tahay waxa la yiraahdo cili dhiiga ilkagu dhiiga markaas kugu dambeynaysa waxay aad kugu fiican tahay waxa la yiraahdaa
afurka ama waxyaabaha soo ilkaaga iyo afka ma sha Allah aad u fiican caruurta isticmaali karta waxaan ognahay kolgeedyada kala suuqa yaala hadii ay caruurta cunaan fluoride ba ku jirta sun ba ku jirta fluoride la yiraahdo oo chemicalisa halis bay gelayaan laakiin tani caruurtaada yar bad cadayga ku bari karta oo aad siin karta kuwa 2 sano jira kuwa 3 sano jira wad gibi wad siin karta wad u caday karta ma sha Allah marka waxa weey wax qof walba u baahan yahay wal xisaabi maanta 30 xaba ama 20 xaba ama 3 oo diibisay oo waxa weeyaan soo shar garaysay 3 xaba waa 3 qof imisa qof aad garanaysaa kumayaal baad garanaysaa boqolaal baad garanaysaa marka ma 3 qof oo daawada ilkaha iibsada miyaad waayaysaa maya 3 qof hadaad ka iibisa daawada ilkaha already hal cc waa dhamaystirtayba hal cc labadii laga doonay waa dhamaysay mabruuk ma sha Allah sidoo kale walaaleel daawada ilkaha ee saabuunta jirka qof walba wuxuu u baahan yahay saabuun subax kasta markaad soo kacdo waxa shaqada ugu horeysa in qabanaa waa maxay waa inaynu qubaysano ma sha Allah shaqadina markaas aynu maalintiina saa ku bilaabanaa soo maaha ma sha Allah marka waxa weey saabuuntu waa shay aad iyo aad u muhiim ah oo nolosheena kamid ah weeyaan marka imisa saabuun ayaad iibin kartaa saabuunta waa inaad garanayso faa'iidadeedii dan hadii aad qaybiso oo maanta intaad qaybiso saabuuntii labadiisii si adigoo markii iibiyay baad arkaysaa marka personal care alaabta personal care-ka qofkii hadaad ka iibisa xabad saabuuna xabad libisa xabad deodorant iyo xabad waxa weeyaan afarta xabaad ka iibiso ma sha Allah pointiyo fiican iyo siisiyo fiican baad samaynaysaa afarta xabo waa afar shay weey afarta shay oo xoog saarta kaliya ayaa labadaadii siisi ka badinaya walaalayaal muhiimaddu waxa laga yaabaa qaybo kale oo alaabteeniya in markaa baad hesho oo aad dalabaad ku hesho laakiin kuwaasina extra ku noqonaya tusaale ahaan aloe vera gel faa'iidooyinka ay leedahay waxa kamid ah ciladaha gaaska oo dhan bay xallisaa qofka awood fara badan bay siisaa tamar fara badan bay siisaa maalintii uu company-geena in la furay ilaa hadda waa barodhaga ugu iibka badan leh ee adduunyada intaasoo milyan oo dollar haddana balaayiin ahayn la iibiyo wey dalab kastoo samayno most of them aloe vera gel way ku jirtaa waa aloe veradii wey ciladaha caloosha hadday noqoto wax walba way caawisaa 20 qof hadii aad ka iibiso oo gaaska iyo babaastirta waxa saman ka cabanaya iyo calool istaaga imisa cc ba kaaga imanaya 2 cc ku dhawaad ba kaaga imanaya 9 meelaha weeyaan xabadad iibisa aloe vera gel halka cc 20 ku maxay noqonaya marka wow labadii cc waa dhamaystirtay ba almost labadii cc waa dhamaystirtay ma sha Allah propolis cream iyo aloe vera gel tusaalahan hadaad 16 xabo ka iibiso 16 qof hadaad labada ka iibiso la isku daray labadii cc already waa dhamaystirtay daawada ilkaha iyo saabuunta iyo hand sanitizer-ka hadaad 26 qof ka iibiso iyadana waa dhamaystirtay labadii cc hadii aad laydal taraaga 15 qof ka iibiso qaybta baasha ma aragtay miisaanka lagu kordhiyo ee nutrition-ka laydal taraaga la yiraahdo aad 15 qof ka iibiso iyadana waxa dhamaystirtay labadii cc ma sha Allah tabarakallah meedan dhameey walaalay labadii cc waa dhameynay congratulations waynu dhameynay mar hadaad ma garanaysaa waxa weeyaan aad intaas samayso 7 cisho gudaheeda hadaad ku samayso intaasi labadaadii cc waa banaanka 7 days ay ka go'antay mar hadaad labadii cc samaysana de asxaab badan iyo team baad samayn commission-kaagii mishaarkaagina waa ku bilaami faa'iidooyinkii guulii waaweynaa company laga sheekeynay ayaad xaq u yeelanaysaa ma sha Allah ways to do hababka dadka badankooda u sameeyaan dadka waxoogaa islowga ah ee qunyar socodka ah waxa ay sameeyaan inta badan 0.5 plus 1.5 cc yani marka ugu horeysa waxa dalbadaan tusaalahan 0.5 cc waa cc-ga halka cc oo laba loo qaybiyay halka cc waa imisa oo $250 wey wadankeeni laba u qaybi oo $150 dadka waxoogaa islowga iska socda aad u yara socda ee raba in iska tukubaan waqti iska qaataan da inta way ku bilaabi karaan ilaa 100 xataa way iskaga bilaabi karaan xataa 75 way iskaga bilaabi karaan laakiin islowga celcelis ahaan cc-ga badhkii halka cc marka laba loo qaybiyo ayaad ku bilaabi kartaa oo $150 marka labaadna halka cc inta ka dhiman bay soo buuxiyaan mostly because alaab yar bay qaateen alaab yar markii ay qaateen alaab badan iyagoo dalab haysta ayay soo noqdeen reason-kuna wax kale ma alaabtii markii lagu ogaaday ama alaabtii yar la arkay ayuu soo helay macaamiil fara badan oo liis ugu jirta ma sha Allah tabarakallah medium-ka dadka iska dhexdhexaadka ah waxa ay sameeyaan iyaguna walaalayaal
hal siisina mar bay qaataan 250 kalena hal mar bay qaataan oo ay kala qaybsadaan hal labadii siisi bay kala qaataan dadka fastiga ah ee doonaya markaaba inay darajadii buuxiyaan iyagu labada siisi hal mar bay iska buuxiyaan ma sha Allah wana sida dadka badankoodu sameeyaan oo kartoonkiiba hal mar iska qaataan alaabtii kartoonka ku jirta ama package-kii $385 ahayd ama se waxa weeyaan labadii siisi $500 bay mar iska wada qaataan marka haddii aad alaabta kala doorato ilaa $500 bay kugu gaari haddii aad laakiin package-ka qaadato labada siisi waxay kugu gaarayaan ma taqaanaayay 2cc-gu waa package-ka qaato $785 way ma sha Allah tabarakallah walaalayaal sababaha inay dadku u qaban ama 4cc ama 2cc gaani u bixin waxa weey qofka hadaf ba malay qofkii waa la diiwaan gelinayaa laakiin hadafkii uu ku gaari lahaa labada cc ayaan meesha ka maqan markaad diiwaan geliso waxa qasab oo muhiim ah inaad 2cc ga buuxiso oo aad fadhiga ka kacdo oo aad dhexda xidhato ayaa la doonayaa comfort zone wadad ma garanaysaa dib nacab inay shaqeeyaan ma doonaan waxay doonayaan lacag bilaash inay helaan shaqo ma rabaan waa waxyaabaha keena dadku inay ku guuldareystaan hadaf ma leh comfort zone iskaga jira wiska ma garanaysaa waa iska dhalan raac weeyaan qofkaasi marka qofkaana ma rabna inaan noqono waxa la doonayaa inaan noqoto qof hadaf leh comfort zone ka soo baxa shaqo diyaar waa insha Allah money problem qofku waxa weeyaan dhaqaalu ka fikirayaaba wuxuu lacag ma haysto lacag haddana aysan waxaad haysataa macaamiisha alaabta u baahnayd macaamiisha soo qabo oo keeno company-ga alaabtiisa ka iibi okay dad baa ku odhanaya waalidkaygii baan ii ogolaan waa problemiska waalidku waxa weeye haddii sida keliya aanu waalidku kugu ogolaan karin businesska inaad bilowdo ama se waxa weeyaan dee waalidkii inaanu fahansanayn ama aad qof yar tahay laakiin badankeeda innagaaba iska waalidiina maasha Allah marka alxamdulillah marka walaalayaal 2cc-ga way noo muhiim waana aragti fiican leedahay alaabtii inaad kala barato ku siinaya hadafkaaga weynaa ayaa gaadhaysaa waxa la doonayaa make it happen waa inaad ka dhigto midaad hadda qabato insha Allah make it happen muddo inta laag baad ku buuxin karta marka adigoo raacaya talaabooyinkii aan caawa ku siiyey ama tibiskan caawa ku siiyey talaabooyinka adigoo raacaya labada siisi ugu horeeya sidee baad ku buuxin kartaa insha Allah ta'ala talaabada ugu horeysa waynu ka hadalnay walaalayaal haddaan ku soo celiyo hal mar maxaynu nidhi talaabada ugu horeysa ee laga doonayo waa maxay talaabada ugu horeysa haye wadila socotay Soomaa soo qora talaabada ugu horeysa maxaynu nidhi step 1 build a list garee dadka aad garanaysa alaabta u baahan talaabada labaad maxaan nidhi raadi dadkii yani connection raadi xiriir raadi oo waxaad samaysaa approach haddii aad dadka aad garanayso familygaaga meel yani approach raadi dadkii qaab aad ugu sharaxda ama alaabtii aad ku gaarsiiso raadi approach ama social media ha noqdo ama offline ha noqdo ama online ha noqdo talaabada saddexaad maxaan nidhi xiriir la samee qofkani alaabtiina u sharax ma sha Allah lambar 4 waa inaad markaa u sharaxdo alaabtii lambar 5 maxaan nidhi dealka xirde ka iibi alaabta ma sha Allah waka inta shanta isdab kaliya ayaad u baahan tahay si aad maxay 2cc-ga hore iskaga bixiso haddaad doonayso tusaale ahaan imise qof u baahan baad garanaysaa loo garajeel alaabtan isaas ma sha Allah marka alaabta sawiradeeda waa la soo wada diri walaalayaal qof kastoo inaga midana waa loo soo diri qof walbana wuxuu ka codsan qofkii caawa soo casuumay productiga cilmi badan baad u yeelan kadibna waxa kuu fudanaysa alaabta inaad degdeg u retail garayso isbuucan haddaad labada cc buuxiso isbuuca dambe team baad dhisi kartaa qofkaad keento 30% baad ku yeelanaysaa tusaale ahaan hadduu ku bilaabo 500 ilaa lacag ilaa $140 ku dhow ayaad helaysaa commission oo lacag aad u badan walaalayaal bishan hadaad 5 qof keento oo 5 qof amina $140 ah noloshaada wax badan bay ka bedeli kartaa lacag ilaa $700 ah ayaad faa'iidi kartaa haddii aad bishan waxa weeyaan hore u socoto walaalayaal waxaan aad iyo aad u jeclahay inaad ila soo dhaweysaan